asalaamu calaykum kusoo dhowow daawada qaybta saddexaad ee sheekada amiina al mufti waxay noo joogtay markii ay qaadatay baasaboorka ama dhalashada Israa'iil waxaan markaanaan eegaynaa baadigoobkii dhalanteedka dhanka kale waxaa sidii caadiga ahayd u socda qorshihii uu muusho ku imaanaya Israa'iil oo ahaa inuu ku biiro ciidanka cirka ee Israa'iil Mooshe waxa uu gaaray darajada korneel dooliyo military oo ka tirsan ciidanka cirka ee Israa'iil dabayaaqadii sanadkii 1973 Mooshe diyaarad uu waday oo nooceedu uu ahaa Skyhawk ayaa howlgalla sahmin ah loogu diray hawada dalka Suuriya laakiin duulimaadkiisii koowaadba ciidanka cirka ee dalka Suuriya ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaaraddaasi Mooshe shilkan ayaa raq iyo ruuxba meel uu ku dambeeyay lagu waayay dalka Suuriyana waa uu ka gaabsaday in uu sheego waxa uu ku ogyahay nolol iyo geeri warka ay ciidanka Suuriya ay ka baahiyeen dhacdadaani waxa uu ku koobnaa in diyaaraddaasi ay qarxiyeen iyada oo gudaha ugu jirto hawada dalkooda Amiina waxay rumaysan kari weyday warkii diyaaraddan waxa ay gashay xaalad nafsi ah iyo qalqal u ekeysiyay qof aan maskax ahaan caafimaad qabin maalmo uu waaga murugo iyo oohin ugu baryo uu gobolkuna ugu dhaco ayay la kowsatay markii ay xaaladeeda ka soo reyn weyday waxa la geeyay xarun lagu daaweeyo xaaladda nafsiga ah iyo xanuunada maskaxda oo ku taala magaalada Region halkaas ayaana caafimaad ahaan loo dhigay waxa ku dhacay cudur nafsi ah oo ku xiray hadalkii ama waxa uu ahaa shoog oo si ku meel gaar ahaan u aamusiyay waxa ay jiiftay qol u gaar ah oo xaruntan caafimaad ka tirsan halkaas oo dhaqaatiirta si gaar ah xaaladeeda ugu dabiibayeen markii ay muddo bil iyo bar ah xaalkeedu sidaan u ahaa ayaa Aamina muddo bil iyo bar kadib waxay heshay waxtarkii daawooyinka waxaa dib u furmay hadalkeedii iyo xasuustii la xiriirtay waxa ku dhacay markiiba waxa ay bilowday muran cusub oo ay ku andacoonayso inay ka shakisan tahay rurnimada warka Suuriya ee sheegaya in diyaaraddaasi oo dooliyihii uu saaran yahay ay qarxiyeen iyagoo aanan ka warramaynin geeri iyo nolol halkii uu ku dambeeyo dooliyaha waxa ay ku dooday in ninkeedii Mooshe uu ahaa dooliye aad u xirfad badan tababaro heerkoodu sareeyo oo dhinaca duulimaadyada militariga ahna uu qaatay sidaa daraadeedna aan la diidi karin suurtagalnimada inuu ka boodo diyaaraddan intii ay burburin waxa ay sheegtay inay qabto dareen ah in weli uu nool yahay kuna gabanayo dhulbeereedyada iyo miyiga u dhaxeeya Suuriya iyo Israa'iil ama ku yaala gudaha dalka Syria waxa ay fikraddan u sheegtay mas'uuliyiinta Yahuud ee arrintaasi qusaysay iyadoo ku doodaysa in Mooshe uu yahay geesi intii karaan aadama ah isbadbaadin karay og markii ay caafimaad ahaan ka soo reysay waxa dib loogu celiyay gurigeedii oo ay ku haysay gabar kalkaalisa caafimaad ah oo dawladda ay ku mashaarinaysa daryeelka Aamina habeen iyo maalin waxa ay ku hamiyi jirtay ninkeedii maqan waxa la arkayay iyada oo isla maqan inta ay isaga ay ka fikiraysa ku hadlaysa erayo cod sare ah oo qof kasta oo u dhawi uu maqli karayay waxa tobanaan jeer si laabatay caradii ay u qabtay carabta oo ay u arkaysay inay mar walba ay yihiin kuwa madoobeeya bidhaan kasta oo u soo ifaysa mustaqbalkeeda waxa soo food saartay qoys kale oo ku abuurantay markii ay is aragtay in ay mar labaad ay ku dhacday god madow iyo in ay beynowdo riyadeedii ahayd inay mar uun ay carab ay ka fogaan doonto Urdun iyo Austria waxay uga timid carab iyada oo filaysay inay haatan Israa'iil ay ka bilaabi doonto nolol xasiloon laakiin nabarkan ay ka bogsan karin ee warwarka weyn ku hayay waxa uu ahaa runta ay og tahay ee ah in Mooshe la waayaa ay ka dhigan tahay mustaqbalkeedii oo gabal uu u dumay ma aanay waayin oo kaliya saygeedii ay jecleed balse waxa dumay nolosheedii oo dhan waxa walwalay u noqotay ciil baday inay marar badan ay ku hamido argoosi aanay haddana maskaxdeedu sawirin kareen sida ay u fulin karto iyo halka ay ka bilaabi karto midna waa ciirsi la'aan cidda ku xeerani ay tahay dad aanan dhaqankoodu caadooyinkooda iyo afkooda midna aysan aqoonin inkastoo ay ahayd inay nafteeda ku canaanato sababta halkaasi dhigtay eersatana Yahuudiga ay guursatay iyo haddana go'aankii ku qasbay inay u guurtay Israa'iil sidaasi ma aysan yeelin ee si bareer ah ayaa eedda ay ku dhacday waxa ay si bareer ugu leexisay carabta muddo markii laga warlaa Mooshe waxay Aamina ka codsatay mas'uuliyiinta Yahuudda ee arrintaani qusaysay inay u ogolaadaan safar ay ku tagto Beirut iyo Dimashq oo ah caasimadaha Lubnaan iyo Suuriya si ay ugu raad goobto saygeedii bal inay geeri iyo nolol mid uun ay ka soo war hesho Aamina iyada oo sidata baasaboorkeedii cusbaa ee Israa'iiliga ahaa ayaa dib ay ugu noqotay magaalada Vienna ee dalka Austria waxaana ay safar ay u ogolaadeen mas'uuliyiinta sirdoonka iyo ammaanka Yahuuddu Vienna waxay ugu tagtay qoyskii Mooshe oo aad ugu murugaysan geerida inankooda dhowr maalmood ayaa ay ku nagaatay si ay qoyska ula wadaagto tacsida maalmo murugo iyo tacsiyadeed oo aad u xanuun badan ayaa ay qoyskii ay la qaadatay
ka hor inta aanay ula soo bixin dib baasaboorkeedii asalka ahaa ee urdun si ay ugu fududeeyo inay dib ay ugu soo dhoofto dalalka lubnaan iyo suuriya. waa markii ugu horreeyay ay aragto magaalada bayruud. waxay safarkaani isku barteen gabadh magaceedu uu ahaa khadiijo sahraan oo qudheeduna ku sii jeeday lubnaan. khadiijo waxay ahayd lubnaaniyad isirkeeda uu urdun uu ka soo jeedo. waxay ahayd baayac mushtar meherad ganacsi ah oo aad u weyn ku lahayd magaalada bayruud. khadiijo waxay aamina magaalada bayruud uga heshay guri yar oo ku yaala xaafadda caynu rumaana ee magaaladaasi bayruud. xaafadan dadka degan waxaa u badnaa falastiiniyiin, sidaasi awgeed waxay ahayd goob laga heli karayo xogo badan oo la xidhiira halganka carabta ee israa'iil ka dhanka ahaa. gurigaas ayay kiraysatay. waxay bilowday dadaalkeedii ay ku raadinaysay wararka la xidhiira sayigeeda. weliba bayruud oo keliya ma aysan ka raadin oo kuma aysan koobin baadigoobkeeda. waxay si joogto ah ay ugu safri jirtay magaalada dimashik ee caasimadda suuriya si ay halkaasi ugu raadiso warka duuliyaha yahuudiga ah ee ay wada joogeen. magaalada bayruud oo joogitaankeedu u badnaa markii ay firaaqada ay tahay waxay tegi jirta meherada ganacsiga ee dharka ay saaxiibadeed khadiijo ay ku lahayd magaalada, waxaana ay ka iibsatay dhar aad u badan oo qiimahooda uu aad u sarreeyo. muddo ay aamino joogtay magaalada bayruud waxa ay martay dariiq kasta oo ay ku filan karaysay inay ku helayso xog ku saabsan ninkeedii. sidaa oo kale waxay dadaal badan ay u gashay inay ka war hesho dadka ku dhaqan magaalada dimashik oo dhowr jeer safarro qarsoodi ay ku tagtay. nasiib darrase dadaalkeedii waxa uu ku soo dhammaaday dhammaanba inay faramarnaato, waxaanay aakhirkii ay gaartay inay ku qanacday mooshe inuu dhintay. iyada oo quustaasi taagan ayaa ay dib ugu socdaashay magaalada vienna ee caasimadda austri. murugo hor leh iyo wehel la-aan ayaa u bilowday. waxa ay weyday cid ay xitaa ay garawsiyo uga hesho uurkutaallada ay ku abuurtay geeridii ay u soo hoyatay ee ninkeedii. marka laga reebo sawirada mooshe iyo wixii hadbay u aragto inuu raadkiisii yahay oo ay laabta gashan jirtay. bil ku dhowaad markii ay joogto vienna waxa ay bilowday wejigeedii labaad ee nolosha. dawanka ama qaylada telefoonka qolkeedii yaalay ayaa muddo habeen bar ah ama xilligii saqdii dhexe waxa uu ka salaliyey hurdada ama uu ka toosiyey. haddii ay haabasho dhegta kula heshay sameecaddii telefoonka waxaa kaga soo baxay cod nin u sheegay inuu yahay mas-uuliyiinta ammaanka ee israa'iil. bilowgii may garan codkiisa, laakiin markii uu xasuusiyey magacii iyo tilmaamihiisii waa ay garatay inuu ka mid ahaa raggii ay kulmeen, gaar ahaana kuwii muddada ka waaninayay in aanay u safrin lubnaan iyo sidoo kale dhulka carabta. waxaana uu si guud uga wareystay xaaladdeeda iyo xaaladda qoyska mooshe uu ka dhashay. inta aanu nabadgeliyeyna waxa uu u sheegay inay u imaan doonaan 3 mas-uul oo israa'iil ay u soo dirtay. maalintii xigtayna waxaa aamino goor barqaa gurigii ugu yimid 3 nin oo ay markiiba ay garatay inay yihiin saraakiishii taleefanka loogu sheegay. dhaxalka ay gaarka u heshay iyo lacagta magdhow ah oo ay dowladda yuhuudda ka siisay ninkeedii mooshe waxay isugu noqotay lacag badan oo gaaraysa $5 milyan oo dollarka Maraykanka ah. waxay sidoo kale ay dowladda ay ka heshay guri aad u qurux badan oo ku yaala magaalada Region oo ahayd magaalada afraad ee ugu weyn Israa'iil. waxaa kaloo saraakiishan ay u sheegeen in Israa'iil ay sugidda amnigeeda ay qaadayso, sidaasi awgeedna loo samayn doono ilaalo fiican oo amnigeeda sugta. ragga la kulmay aamina waxay si bareer ah ugu sheegeen marka ay howshaas ay qabtaan waxa ay tahay abaalcelinta laga rabaa. waxa aynu kaa rabnaa inaad nagala shaqayso danta dalkaada Israa'iil oo dabcan adigana dantaadii qofayd ah, ayaa si kooban loogu sheegay, iyada oo weliba si dadban loogu muujiyey in ay soo jeeditaankaas ay tahay codsi awooda oo amar oo kale ah oo ay qasab tahay in la fuliyaa. waxa aanu kaa doonaynaa arrintan basaasnimada inaad bilaawaabasho aad u qabato ama aad u aqbasho, ayaa ay saraakiishii muusaad ka socotay ay ku yidhaahdeen Amiina. marka lagu eego indhaha sirdoonka, Amiina waa macdan qaali ah oo aan lacag lagu qiimeyn karaynin. waa gabar cadbeed oo dalkeedii iyo dadkeediiba weyday, colaad xoogganna u qabta. waxa ay hadda ku jirtaa xaalad nafsi ah oo aad u liidata. waxaa ku xeeran cabsi badan. ma haysato hooy ay og tahay inay ku badbaadi karto oo aan ahayn Israa'iil. intaas oo dhammina waa sabab ay u aamini karaan in aanay diidaynin inay la shaqayso iyo inay si hagar la'aan ah ay uga soo bixi doonto hawsha loo diro. sirdoonkii Israa'iil oo lagu yaqaano xirfad aad u sarreysa diyaar umaana ahayn in uu dayaco fursad kasta oo u sahlaysa in Aamina al-Mufti ay noqoto basaasad u adeegta.
saddexdii nin ee loo soo diray si ay nafsiyan u sii dilaan uguna kordhiyaan nacaybkay u qabtay carabta waxay xasuusiyeen xaaladda nololeed ee ay hadda ku jirto iyo cabsida mustaqbalka ku xeeran. waxay geliyeen shucuur ah in maanta cidday ugu necab dunida ay tahay carab oo sirdoonkooda oo dhammi ay ku howlan yihiin siday u dili lahaayeen ama ay u qafaalan lahaayeen si qarsoodi ahna loogu celin lahaa dalka Urdun. cidda kaliya ee maanta ammaanka iyo nolosha la doonaysaana ay tahay Yahuudda. waxay aad ugu celceliyeen in iyada iyo carabta aanay waxba ka dhaxaynin. marka koowaad ma ahan isku asal oo dabcan iyada asal ahaan carab ma ahan oo waxay ka soo jeedaa qowmiyadda Saraakish ama Sharkishka. marka labaadna waxay u sheegeen inay carab ay tahay cidda dishay ninkeedii ay jecleed oo maanta u baahan inay u aarto. waxay u aragtaa xogtaani inay tahay biyo kama dhibcaan. haddii waxaasoo dhan laga tagana arrinta runta ah ay og tahay waa inay maanta ay u baahan tahay cid ay magan ay u noqoto. cidda keliya ay u aragtaa inay kaalintaa buuxa kartana waa Israa'iil. aragtida uu qabay sirdoonka Yahuudda ay ahayd inay ka faa'iideysan karaan Amiina al-Mufti oo sidatay jinsiyadda Urdun, Awstria iyo Israa'iil waxay ahayd aragti sax ah. hase yeeshee shakiga ay saraakiisha Muusaad ka qabaan inay ku adkaan doonto inay ku qanciyaan basaasnimadu wuxuu ahaa shaki aan sidaasi u sii ridnayn ama aan badnayn. Amiina uma ay baahnayn in qorshaha sidaas u dheer loo galo basaaska dhigisteeda iyo inay u shaqayso Muusaad oo ay ka hortimaado dalkeeda iyo danihiisa oo dhan, waayo waxay ku jirtaa xaaladda oo qof uu u nugul yahay in laga faa'iideysto. waxa u dheer inay horey u iibsatay diinteedii iyo dalkeedii, markaas maba haysato wax intaa ka qaalisan oo ay ku gorgortanto ama ay iibgeyso. markana waxa u sii dheer taagdarro, quus iyo dayac ay dareemaysay. tan iyo bilowgii nolosheedii Yurub, Aamina ma aysan dhowrsan nolosheedii iyo sharafteedii, iyada oo doonisteeda iyo xiisaha ay u qabto tuurtay dhaqankii ay u huwatay mid aanay ab iyo isr midna aysan u lahayn. waxay xagga dambe ku tuurtay diinteedii, wadaniyadeedii iyo sidoo kale dhowrsanaantii dhaqankeedii uu farayay. arrimahan oo dhan waxay saddexdii sargaal ee loo diray u fududeeyeen inay ka faa'iidaystaan wehel-la'aanta haysata, waxaana ay cuudka ugu garaaceen xarkaha nacaybka carabta guud ahaan iyo sidoo kale Falastiiniyiinta si gaar ah, siday hay-adaha sirdoonka u yaqaanaan basaasadu ma taqaano mabda'a naxariista. dhabahaas ayuu ahaa kii ku hogaamiyey dabankii sirdoonka, waxaanay taladeeda iyo hoggaankeedii gacanta u saartay saddexdii sargaal ee saraakiisha Muusaad ka mid ahaa. isla saddexdaasi sargaal ayaa u bilaabay tababar aad u heer sarreeya oo dhanka sirdoonka ah. muddo bil iyo 4 maalmood ayaa gurigeeda dhexdiisa ay ku baranaysay xeeladaha wax loo basaaso iyo weliba habka kala gedisan ee sawir qaadista, jebinta furayaasha sirta iyo qaabka warka loo gudbiyo. waxaa kaloo la baray noocyada hubka iyo sida ugu habboon ee ammaankeeda shakhsiga ay u sugi karto. waxaa la baray sida filimada loo diyaariyo, sida looga baxsado cid ku daba jirta, sida loo adeegsado bastooladda. intaas laguma deynin ee rugcadaaga Israa'iil ee ku xeel dheer cilmi nafsiga ayaa Israa'iil loogu keenay inuu siiyo tababaro dheeraada, waxaana uu siiyey tababar xoojinaya xasuusteeda, maskaxdeedana u diyaarinaya si waafi ah inay u xasuusato waxyaabaha si kediska ay u aragto ama si sibiq ah ku dhaafa. inta la daawasiiyo filim ayaa markii uu dhammaada laga dalban jiray inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdooyinka iyo muuqaalada ka soo baxay filimkaas oo ay aragtay. imise koob ayaa dul saarnaa miiska cuntada, sheeg midabka daahiyada daaqadda ku xirnaa, imise ayay ahayd tirada kaabaha sallaanku, ama imise qayb ayay ahayd tirada jaranjarada la fuulo. waxaa lagu tababaraya in maskaxdeeda mararka qaarkood ay ku qasbi karto inay soo celiso xasuusta waxa ay mar hore ay ilowday. bilowgii hore ee tababarkan waxa ay muujisay maskax badni iyo faham dheeraad ah oo ay aad u soo jiitay xeeldheerayaashii ku mashquulsanaa tababarkeeda. Aani Moshe ama Aamina al-Mufti waxaa laga dareemayay colaadda iyo siday uga go'an tahay in ay aarsato wax kasta oo xitaa u suurtagal ahna ay samayso si ay uga aarguddo ninkeedii Yahuudiga ahaa ee Moshe, kaas oo loo malaynayo inuu ku dhintay diyaaraddii uu waday oo ay soo rideen ciidanka cirka ee Suuriya. Amiina waxa ay sheegtay si ay u muujiso una caddayso jacaylka u qabtay Moshe ay jeclaan doonto colaad kasta oo isirka Carbeed liddi ku ah, si hagar la'aan ahna ay ugu shaqayn doonto xoojinta colaadda ee Yahuudda ay u qabto carabta. waxa ay sidoo kale ay sheegi jirtay in habeenkii ay ku riyoto Moshe oo buuraleyda Joolaan ku dhex silcaya, dhar jeexjeexanna xiran, garkii uu ku batay, indho darxumo aageedna meel dheer ay ka soo jeesteen uu ku dhawaaqayo ibadbaadi aaniyay ama Moshe, ibadbaadi xabiibi. waxay ku andacootay inay ku riyoon jirtay mararka qaarkood
mooshe oo jilibkiisii go'go'a jirkuna waslad u cunaayo. riyooyinkaasi waxay ka mid ahaayeen sababaha laabteeda kusii huriyey xiisadda ay u qabto inay raadisa mooshe iyo inay ka aargoosato kuwa loo tirinaya inay dileen oo ah kuwii ay ku eedaysay inay sabab u ahaayeen mustaqbalkeedii inannimo inay burburiyaan. waa carab oo falastiinigii ee jecleed iyo suuriyaankii saygeedii dilay ay yihiin labada tiir ee cadaawadda ay u qabto, taas oo ah midda ay ku dhisan tahay cadaawaddeeda. markii ay dhammaysatay howlihii tababarka waxaa loo diray shaqadii ugu horreysay. waxa ay mar labaad timid magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan. safarkeedu markan ma uusan ahayn sida kii hore oo kale oo ma doonayso inay xog ay ka hesho ninkeedii la waayey, laakiin waxay u socotay inay u soo aarto. howsha loo diray waxay ahayd inay xog dheeraada ay ka soo ururiso mas-uuliyiinta iyo madaxda ururada falastiiniyiinta iyo ragga u muuqda inay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo fadhigeeda uu yahay magaalada bayruud. jabhadda falastiiniyiinta israa'iil kula jirta halganka ayaa saldhig militari iyo xafiisyo muhiim ah oo madaxdeedu ay ku shaqayso waxay ku lahaayeen lubnaan. waxaa laga rabay inay wax badan ay ka ogaato goobaha ay ku kulmaan iyo xarumaha ay degan yihiin mas-uuliyiintan. waxaa kaloo laga rabay inay xog dheeraada ay ka keento jidadka ee israa'iil ay ka galaan kooxaha naftood hurayaasha ah ee ka imaanaya lubnaan si ay gudaha israa'iil howlgallo uga fuliyaan. waxaa kaloo laga rabay inay tabiso tilmaamaha juqraafi ee godadka iyo goobaha hubka ay ku kaydsadaan falastiiniyiintu, xirfadaha dagaalka iyo sida ay ismiidaaminta u adeegsadaan. markaana aan eegno casuumaaddii fusuqa. amiina waxa ay magaalada bayruud ka kiraysatay guri ku yaalla badda xilligeeda uu ahaa deegaanada ugu quruxda badan magaalada. waa guri hawo badan, mar kasta oo barxaddiisa sare la istaagana nafta ku qaboobayso bacaadka nadiifka ah ee mawjadaha badda garaacayaan. haddii aragga lasii yara daayana waxay indhuhu ka dhammaan kari waayeen muuqaalka quruxda badan ee baluuga cirka u eg ee badda dhexe mediteraneanka. guriga waxaa aad ugu dhowaa maqaaxida lagu magacaabo la tolsi vita oo ah farca ka mid ah maqaaxi talyaani ah oo caalami ah. maqaaxidan waxaa isugu imaan jira siyaasiyiinta, fanaaniinta, maalqabeennada, aqoon-yahanka iyo guud ahaan dadka lagu tiriyo labeynta bulshada iyo sidoo kale dalxiisayaasha iyo basaasiinta. waxa keliya ee bilowgii dhibaatada ku noqday waxa uu ahaa qadkii taleefanka ee guriga ay kiraysatay oo cillad ka bixi kari waayey. markii ay dhowr jeer la xiriirtay shirkadda taleefanada waxaa loo sheegay in qadadka shirkadda ee deegaanku ay deganeed uu leeyahay cillado ku soo kordhay muddooyinkaas oo shaqo dib u habeen dhinaca shabakadda shirkaddu ay waday. waxa ay u tagtay khadiija sahraan, gabadhii baayac mushtarka ahayd ee safarkeedii hore lubnaan ay diyaaradda isku barteen. waxa aanay ka dalbatay haddii ay cid ka garanaysa shirkadda taleefoonada inay ula hadasho si loogu hagaajiyo qadka taleefoonka ee ka xun iyo in loo furo qad dibadda ah. nasiib wanaha khadiijo waxay u sheegtay inay si fiican isu garanayaan nin ka mida mas-uuliyiinta shirkadda taleefoonada, aadna ay ugu hanweyn tahay inuu wax badan ka qaban kara arrintan. khadiija waxay isbartay mas-uulkan ka tirsanaa shirkadda taleefoonada ee magaciisa uu ahaa manuel casaaf iyo amiina almufti. casaaf oo ku socda codsigii khadiija ee ahaa in gabadhaasi saaxiibteed uu caawiyo ayaa gurigeedii booqday. waxa uu u sheegay sababta cilladda taleefoonka haysatay in ay shirkaddu markaasi ay gacanta ku haysa dib u hagaajintiisa, isagoo si gaar ahna ugu bishaareeyay in iyada darteed uu sii kordhinayo dadaalka awalba socday ee dhibaatada lagu xallinayay. amiina maalintaasi waxay casaaf ay tustay soo dhoweyn badan oo xitaa damacgelin ay ku jirtay. waxa ay siisay 50 liiro oo lacagta lubnaan ah oo ay u sheegtay inay tahay hadiyad. habdhaqankii casaaf uu kula kulmay gabadhan waxa uu ku sii abuuray dareen gaar ahaaneed oo lur ku kiciyay qalbigiisa marka horeba haweenka wax loo saaray. waxa uu naftiisii u hambaliyeeyey in uu helay gabadhii abid uu ku riyoonayo oo qurux, aqoon, jajabnaan iyo lacagta isugu darsantay. waxaase uu ka war la-aan yahay in go-aanka aamine uu yahay inay siiso adduun iyo xitaa sharafteeda, laakiin beddel ay ka rabto. amiina almufti isbarashadii iyada iyo casaaf waa ay sii adkaysay. si dhaqso ah ayaanay ula bilowda kulamo ee casaaf ay ku casuuntay gurigeedii si ay in badan u sii fahanto, si fiican ay u daraasayso meelaha ugu faa'iideyn karo howlaha sirdoon ee ay u socotay. waxaa casaaf ay u sheegtay inay tahay ganacsato. marar dambe uu caawiyeyna waxa ay siisay lacago fiican oo abaalmarin ahaa. waxaase ay lacagtii ay u raacisay wixii uu ugu jeclaa ee hadiyad ahaanay u siiso oo ahay sharafteeda. waa xeeladaha lagu tababaro dumarka sirdoonka ah. xiriirka jinsiga ayaa ah jidka ugu muhiimsan ee u maraan ujeeddadooda sirdoon. mar kasta oo casuumaandaani fusuqa ah ay kala kulanta casaaf waxa ay si dadban ay uga wareysan jirtay arrimo xiriir la leh xogta ay raadinayso iyo meelaha ay doonayso inuu ka caawiyo shaqadeeda sirdoonka ah. casaaf oo iskara garan la
ayaa marar badan si faan ah uga sheekeeyey qaabka qaldan ee shirkaddu uga faa'iidaysto arrimihiisa gaarka ah. markii la gaaray wakhtigii u aragtay in Casaaf uu u bisil yahay dalabkeedii, waxay si toosa uga codsatay in uu ka caawiyo howlaha ay ka mid ahaayeen in taleefoonada gaarka ee hogaamiyaasha Falastiiniyiinta uu u keeno, iyo sidoo kale in haddii loo baahdo uu ka caawiyo dhageysiga xiriiradooda taleefoonada. Amiina waxa ay ka duuleysay hadal horey uu ugu faanay Casaaf oo ahaa inuu awood u leeyahay dhageysiga taleefoonada iyo in sheekooyinka ugu sheekeeyay ee la xiriira taleefoonada dumarkii uu dhageystay. gabar kasta oo damac uu ka galo inta uu taleefankeeda ama lambarkeeda uu soo helo ayuu dhageysan jiray si uu u ogaado xiriirkeeda, isagoo hadba tii xiise gelisana halkaas ka ogaarsan jiray. inkastoo Casaaf uu aad u caawiyay Amiina, xogo badan oo muhiim ahaana ay ka heshay, haddana waxaa la gaaray meel aanu dalabkeeda gaarka ah ka jawaabi karaynin awooddiisa maamul oo ka hooseysa awgeed. waxay aad ugu darneyd markii ay ka codsatay inuu lambarka taleefoonka uga dhigo mid qarsoon oo ciddii ay la hadashaaba aanay arki karin, inuu taleefonkeeda la hadalka dibadda ugu furo, iyo inuu u soo raadiyo lambarada dadka muhiimka ah ee ay u baahato oo ay ku andacoonaysay inay danaa ganacsi ay ka leedahay. Casaaf ayaa weli waxa ay la tahay inuu helay hibo adduuntii ugu sarreysay, waayo waxa uu wakhtiga uu ku samay inuu howl yar uu ku hanto qalbiga gabar qurux badan oo Rabbi maal iyo aqoonba uu siiyey. arrimo badan oo sirdoon ahaan Amiina muhiim u ahayd ayuu ka caawiyey. waxaa ka mid ahaa inuu u hagaajiyo taleefonkii uuna u fududeeyay in dibadda loogu furo, isaga damiin iska dhigay. waxa uu u keenay taleefoonno qarsoodi ah oo ka mid ahaa hogaamiyaashii jabhadda Falastiiniyiinta isticmaali jireen iyo halka ay degan yihiin oo ahayd xaafadda caanka ah ee Rayxaana oo magaalada Bayruud ka tirsan. si kastaba ahaatee, Amiina waxaa niyajab ay ku noqotay xaqiiqada ah in Casaaf awooddiisii shirkadda aanay gaarsiisanayn halkii ay ka filaysay, iyo waxa ay doonaysay oo dhan aanu ku fulin karin awooddiisa. tusaale ahaan, waxay ogaatay inaanay u fududayn karaynin inuu helo taleefanada mas-uuliyiinta sarsare ee Falastiiniyiinta oo madaxda ugu sarreysa shirkadda oo keli ah ay ogaan karaan, in lambarkeeda aanu ugu dhigi karin mid qarsoon, inaanu awood u lahayn inuu u soo duubo sheekooyinka iyo wararka taleefoonka ku dhex maraya mas-uuliyiinta sare ee Falastiiniyiinta. waxay arrintaani ay ku noqotay guuldarradii ugu horreysay ee ka soo gaarta hawshii ay u timid magaalada Bayruud. Manuel ama Casaaf qudhiisa waxa uu dareemayay in aanu sida ay rabto ugu adeegi karin gabadhan oo haatan uu jeclaaday. waxa uu hiifay mansabkiisii iyo awooddiisii shirkadda ee qancin kari weysa luulkii uu helay. markii uu dhinacyo badan ka eegayna arrinta waxay la noqotay in guddoomiyaha shirkadda isgaarsiinta oo wax waliba ay kaga xirnaayeen inuu lugaha uu u soo geliyo arrintan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa mas-uulkan shirkadda oo magaciisa uu ahaa Maaruun waxa uu u kaxeeyey gurigii Aamina si uu isu soo baro. Maaruun waxa uu ahaa shabeelnaagood kale oo sida Manuel ka badan, kana dhiiran isaguna mashquuliyo hanashada iyo la macaamilka haweenka. waxa aanay la gaartay heer uu xilkiisii shirkadda uga faa'iidaysan jiray inuu basaaso taleefoonada dumarka, gaar ahaana kuwa uu rabo inuu xiriir haasaabo uu la yeesho ee uu doonayo inuu ogaado ragga kale ay ku xiran yihiin. xogti uu ka hela sheekada taleefoonada ayuu mararka qaarkood ka dhigan jiray dariiquu u maro barashada dumarka, mararka kalena waxa uu ka dhigan jiray hub uu ku handado gabdhaha ka gows adeega barashadiisa. siyaabahaas iyo habab kale oo badan ayuu u dhageysan jiray taleefoonada dumarka oo uga faa'iidaysan jiray Maaruun Xaayig. Amiina oo tababarkii la siiyey iyo waaye aragnimadeeda xiriirada raggu markiiba ay gaarsiiyeen in Maaruun uu yahay ragga dumarka ee aragtida ay kala dhaxaysay sida sahadalkana howl kasta isu dhaafin karayay, ayaa markiiba nafteeda waxay u sheegtay in Maaruun uu yahay qofka saxda ah ee howlaha isgaarsiinta ka caawin karaya. iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa ayaanay markiiba ay u dirtay ishaarooyin uu ninka Haaruun oo kala ahi uu si fiican ugu fahmi karayo inay diyaaray ula tahay xiriir adag iyo wax kasta oo ka sii badan inay isdhaafsadaan. Casaaf oo hawshan dhan u sameeyey in uu meel adag uu ku gunto xiriirka uu gabadhan la leeyahay, kuna sii abqaala jaceylka dhankiisa runta ah ee uu qaaday Amiina, ayaa waxa uu lama degaan waaqla ah uu kaga guuray Amiina iyo Maaruun oo isla ilbiriqsigii ugu horreeyba kulankoodii isla jaan qaaday. Amiina waxay ugaarsigeedan cusub ee ku casuuntay kulan casho iyo sheeko ah iyo isbarasho intaan ka badan ay ku yeeshaan, laakiin waxay noqotay casuumaad kale oo fusuq ah oo mid kastaaba labadooda uu ka mid ahaa ujeeddo gaar ah iyo dana gaar ah uu ka leeyahay ama uu ka gaadhayay. marka laga tago ujeeddada casuumaadan ay ka lahayd ee ahayd inay si fiican u fahanto qofka uu Maaruun u yahay iyo inay tusto calaamado qalbigiisa ku huriya dhimbil caashaq, waxa ay sidoo kale ay sheekada u raacisay su'aalo dhowr ah oo isaga oo u dhaadin ka jawaabayay.
su-aalaha nuxurkooda wuxuu ahaa in ay sidii casaaf oo kale aysan ugu hongoobin oo hadda ay iska sii hubiso ilaa xadka awoodeed uu u leeyahay inuu farsamo ahaan ka caawiyo howlaheeda basaasidda. isla markii uu kulankii dhammaaday aamina waxay qortay warbixin dheer oo ay ku xusayso wax kasta oo xaayig uu yidhi muddadaas ay wada joogeen iyo dareenkiisii ay ka akhrisay. waxaa kaloo ay warbixintaasi dhowrka bog ka kooban ay ku dartay jawaabihii uu siiyey maaruun su-aalo dhowr ah oo ay weydiisay sidii ay ahayd ballantii iyada iyo saraakiisha ka sarraysa ee muusaad. aamina waxay warbixintii ay ku riday tanag xashiish lagu guro oo ku yaala guriga ay degan tahay hortiisa, halkaas oo marka ay ka tagta ay imaan doonaan saraakiil ka tirsan muusaad oo si qarsoodi ah uga saari jiray warbixinta una gudbin jiray talaabiib. xeeldheerayaasha muusaad iyaga oo kaashanaya basaasiintooda ka howlgala gudaha lubnaan waxay si qoto dheer ah u baareen xogta gaar ahaaneed ee ninka aamine ay soo sheegtay. jawaab dhaqso ah ayay ku soo celiyeen, waxaana ay noqotay in ay sii wado xiriirkeeda ninkaasi oo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan qalbigiisa ay ku hanato. mas-uuliyiinta muusaad waxay aamine ay dareensiiyeen in ninkaas wax badan ka caawin karayo shaqada basaasnimo ee u joogta magaalada bayruud, gaar ahaanna inuu u fududayn karayo helidda liisaska sirta ah ay ku qoran yihiin magacyada dadka xubnaha ka ah xafiisyada ammaanka iyo xog raadinta falastiiniyiinta. sida lagu sheegay jawaabta muusaad, xaayig ama maaruun xaayig waxaa kaloo aamiine uu ka caawin karayay inay hesho taleefanada gaarka ee mas-uuliyiinta sare, gaar ahaan yaasir carafaad iyo cali salaama. ugu dambayntiina waxa uu ku hagi karaa inay isbartaan yaasir carafaad iyo sidoo kale cali xasan salaama oo ah qofka ugu muhiimsan ee ay tahay in xogtiisa ay raadiso. cali xasan salaama waxauu madax ka ahaa ururkii sirdoonka iyo howlgalka gaarka ah ka fulinayay oo si dadban u hoostegaya sirdoonka guud ee falastiiniyiinta. waxuu ahaa qofka koowaad ee israa'iil ugu raadin badan tahay lubnaan oo keliya ma ahan ee dhammaan xafiisyada ee basaasiinta israa'iil ee dunida daafaheeda ku filqani waxay ku amrayeen in ay meel kasta oo dunida ay ka joogaan ay raadiyaan xog la xiriirta salaama oo sirdoonka yuhuudda ay ula baxeen amiirka cas. amarka ah in geeri iyo nolol lagu helaana uu ka yimid halka ugu sarraysa ee maamulka israa'iil oo ah haweenaydii xilligaasi ra-iisul wasaare ahayd ee magaceeda uu ahaa golda maa'ir. cali xasan salaama waxa uu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii falastiiniyiinta dalka jarmalka ay ku dileen 11 ciyaartooy oo israa'iil uga qaybgalaysay ciyaarihii olombikada ee wakhtigaasi ka qabsoomaya dalka jarmalka. maaruun damiciisu waxa uu ahaa in mar uun gacanta uu la gaaro hilbaha maan qaaday ee hor yaalla, laakiin amiina waxa ay ka fogeyd arrintaas. xumaan inay u marto ujeeddadeedu waxay ahayd dhaqankeeda iyo xeeladda ugu weyn ee loo soo tababaray. markii ay dhowr kulan ay isugu yimaadeen isbarashadoodiina sii xoogaysatay waxay ku guulaysatay in maaruun ay ka heshay taleefoonada mas-uuliyiinta sarsare ee ururada falastiiniyiinta ee xarunteedu ahayd magaalada bayruud ee dalka lubnaan. waxaa sidoo kale ay ka heshay xog badan oo ku saabsan goobaha ay ku kulmaan mas-uuliyiintani, xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin. amiina oo markii dambe isticmaali jirtay sanduuqa boosto sir ah waxa ay si sir ah ula xiriirtay mas-uuliyiinta sirdoonka ee ka sarraysay, iyada oo si joogto ah ugu diraysay hadba halka uu xaalka uu marayo iyo wixii xog ah ee heshay, islamarkaana ka qaadanaysa wixii tala iyo amaro cusub ah oo ay soo siiyaan saraakiisha ka sarraysa taas oo howlaheeda quseeya. waxa uu ahaa inay soo hesho liiska sirta ah ee magacyada xubnaha sirdoonka falastiiniyiinta dunida ugu kala maqan, gaar ahaana qaaradda yurub. waxa ay u sheegeen sida keliya ee xogta loo diro ay ku heli kartaa inay tahay dhexgalka xafiiska ururka xoreynta falastiiniyiinta guud ahaan iyo si gaara xafiiska yaasir carafaad oo ah hogaamiyihii ururkan xoreynta falastiiniyiinta ee PLO iyo sidoo kale xafiiska cali xasan salaama. halkaa inoo joogto qaybta saddexaad ee sheekada ku saabsan amiina almufti. waa inoo qaybta afraad iyo qaabkay isku barteen cali salaama amiirka cas iyo sidoo kale hogaamiyihii ugu sarreeya yaasir carafaad. waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socoshada sheekooyinka kala duwan ee halkan aan ku soo bandhigo. tani intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.